السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان كسو قبيل برياش شركان iyo madaxda iyo gaadiyaasha barnaamijkan qof walba waxaan salaamayaa maqaam ku leeyahay waxaan ka hadlaynay waxa la yiraahdo gender based violence haddii aan ka hadlo caqabadaha gender violence waxa weeye dawladda awoodeeda oo ah mid aad u horeeya waxyaabaha keeni kara in tacdiyo badan ay ku dhacaan ama loo geysto dumarka waxa ka mid ah dawladdii oo aan aad isaga xilsaarin in ay soo qabato dadka ama waxyaabaha ama guryaha lagu sameynayo isku maasuqa iyo arxandarrada waxaa jirta in dawladdeena ay dad yaabo badan ama dad caqabado badan geystay ay soo qabato haddana dadkaas dad lagu qaaday kiiskoodina waa jiraan dad aan lagu qaadin waa jiraan marka waxaa loo baahan yahay dawladdu in ay ka jawaabto qof walba dembiga uu galay ama uu geystay faqriga ama si shaqo la'aanta tacdiyada ama waxyaabaha kufsiga waxaa loo geystaa badanaa waa gabdhaha waxaa jirta faqriga ama si shaqo la'aanta waxaa jirta dad yaabo badan oo ka soo shaqo tegay ama ka yimaada deegaanadoodii sida koonfurta waqooyiga iyo galbeedkaba dadkaas waa dad waalidkood ama ehladooda ay soo dirsadeen ay dhaheen meeshaas ama heblaaya nala soo shaqeen qofkaas waxaa laga yaabaa in uusan lahayn aqoon uu ku shaqaysto xirfad uu ku shaqaysto uusan lahayn ama uu badanaaba waa gabdho waxaa loo soo diraa waa ijaar inay noqdaan ama guryaha ka shaqeeyaan ama xafiisyada ka shaqeeyaan oo xaaqaan marka dadkaas waxa ku sababay in ay shaqaystaan waa faqri iyo kharash la'aan ayaga soo wajahday marka hore waana dadka u nugul in lagu sameeyo tacadiyada gabdhaha oo ay ugu horeeyaan dadka ijaarka ama dadka deriska u shaqeeya ama dadka xafiisyada ka shaqeeya waayo qofkaas waa qof lacag raadinaya waa qof raba inuu wax tabco waxa aad siisid ama waxa aad ku dhahayd buu kaa qaadanaya qofkaas marka qodobka labaad waxa weeye faqriga ama sharqaanta waxaas looga bixi karaa in la sameeyo horumar dhan walba ah qofkaas waxaa loo baahan yahay qofka uu shaqeynayo ama qofka uu la joogo xafiiska uu la joogo inuu ka soo qaado qof oo asagu dhalay kama inuu wacyigeliyo oo uu meelaha xun uga digo oo uu yidhaahdo dad yaabaha aad la xiriiraysid iyo kala socdo wax baa loo baahan yahay waxaa jira ururadeennaan oo kale inay jiraan oo deegaamada ka jira marka waxaa loo baahan yahay wacyigelin baahsan in lagu sameeyo dadweynaha magaalada jooga ururadu isa kaashadaan wacyigelinta marka waxaa loo baahan yahay in xaafad loo tago magaalada dhexdeeda ama kulamo loo qabto dhalinyarada iyo yaabaha xaafadaha jooga waalidiinta ugu horeeyaan waxaa jira hadda culimaadudiinka magaalada jooga inay wacyigelin aad u tiro badan sameeyaan haddana aan dhig sharaf loo siin waayo masaajidka marka qofka asagoo tacadigii sameynaya oo kufsigii sameynaya oo dhicii sameynaya boobka sameynaya buu masaajidka loo ku sameeya waxaana moodaa qofkaas inuu iska dhaga tirayo dhalinyarada qaybaheeda aqoonta leh in ay wacyigelin sameeyaan sida annagoo kale in la tago xaafadaha in la tago meelaha dhalinyarada ku furanta ama bulshada isugu timaado oo dhalinyarada laga wacyigeliyo inay kufsiga iyo boobka iyo dhaca iyo dilka ka daayaan dadka ay deegaankooda jooga iyo waalidiintaba waxaa jira dhalinyarada yarar ama kuwa mobeelada furta ama ha ahaado qofku ka xufsanayba xaafad buu ka soo kaca waalid buu leeyahay qofka haddii uusan waalidkiis uusan ka helin kala bixin iyo tusaaleyn iyo oo ah inuu waalidku mar walba wax u sheego wuxuu raba ku sameynaya waxaa jira kuwa iskuulla dhigta oo dhac mobeela ah sameynaya iskuullay dhigtaan wacyigelin baa lagu sameeyaa laakiin waxaa jirta wacyigelintii waalidka oo ka maqan telefonkii buu xiranaya iskoolkii u aadaya 6 saac u imaanaya gurigiisu seexanaya habeenkiina meesha jooga aadaya waxaan moodaa in waalidka ay isla socon marka wacyigelinta waalidka iyo dhalinyarada iyo culimadu hadday isa kaashadaan qofkaas in wax loo sheegi karo baan ugu aaminsanahay